20 arday oo bartay xifdinta quraanka kariimka soddonka juz kana qalin jabiyay macadka barashada quraanka kariimka iyo culumta diinta islaamka ee al-Haramayn al-Shariicayn ee ku yaala Boorama ayaa maanta xaflad qalin jabinahayd waxa loogu sameeyay gudaha Boorama. xafladan waxa ka soo qayb galay culimada waaweyn ee Boorama ku dhaqan, waalidiin, caruur iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. madashan ugu horeen waxa ka hadlay maamulaha macadkan Qadar Aadan Ibrahim waxa uu ka sheekeeyay heerarkii kala duwan oo macadkan soo maray ardaydan maanta qalin jabinaysa. sidoo kale qaar kamid ah culimada Boorama ku nool ee madashan ka soo qayb galay ayaa iyaguna waxay u hambalyeeyeen ardaydan soddonka juz ee quraanka kariimka xifdiyay ee maanta shahaadooyinka la guddoonsiinayo, waxayna ku dhiirigeliyeen inay hore u sii mariyaan waxbarashadooda culumta islaamka. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. عبد الفتاح أحمد، هاد وناج نيوز، مقالة بورما.